iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد قال الله تعالى وحين كبلا بين سورة البقرة آيات بقولي السدات كتب عليكم بولهاي وحل إذن كواتبي إذا حضر أحدكم متكين مركة وكي مادة الموت جارد إن ترك خيرا هدوح ولا كتغو الوصية دردارا باقف قال من يلقوا واجبيي للوالدين لبدي دلاو دردارمو يا والأقربين ددك إسحقان بالمعروف سي وناكسن وقد دردارمو حقا على المتقين وواجب ساران ددك الله كعبسنيا فمن بدله قفك دردارا كدورية بعدما سمعه انت ومغلي كذب أيوه حكى بدله فإنما إثمه الدنبقي سوح سارين على الذين يبدلونه ضدك الدورينية وحكى بدلية إن الله سميع عليم إلهي با وحول بمقليو وحول بأكسون فمن خاف قفك كعب صدا من موس قفتر دار ميا جنفا لا حشو أما حشو أيو كبقلا أو إثما أما يندم بكرعه فأصلح بينهم ضدك نحذو ذي وناتي فلا إثم عليه كادا بمسار إن الله غفور رحيم إلهي با دنبق النافة ونحريسنا سبحانه وتعالى دور كآية الضوحي كور رميان نظام كأي أحكام إسلام كودغي شيء الله يقانا دردارن كنا مرك الله صوت تعريفية فقهها وحوية تبرع لما بعد الموت وقفك وحبحنيا قريدة كذب أما تبرع في مرض الموت دردارا معناها wax uu qofkii ku deeqay isagoo sii dhimanaya waa laba midun isagoo caafimaad qaba ayaa wuxuu yiri mar hadaan caawa dhinto saasay yiraahdaan caawadaasay ku qaydaane hadaan caawa dhinto in daarta ama neefka hebel baale ama heblaayaan imika ma siinayo laakiin hadaan dhinto buu ku leeyahay geerida dabadeeda way waa wasiya dardaaran ama isagoo oo il daranba oo xanuunkii uu ku dhintay oo hayo ayaa wuxuu leeyahay hadduu doono haba go'aamiye hebel waxaasuu leeyahay ama heblaaya waxaasay leedahay hadduu go'aamiyeyba xanuunkiina wuu ku dhintay dardaaran baa leeyahay marka wuxuu kaga duwan yahay tabaruca kale quyuud baa ku xidhan dabaraa ku xidhan dabarka koobaad waxa weeye inaanu dhaafi karin xoolihiisa saddex meelood oo meel الثلث والثلث كثير رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه سعد الدردار من يحكي كله xoolahaaga wax ka badan thuluth bixin thuluthkaaba badan ba saddex meelood oo meel boqolkiiba 3 fraction intaas uu islaamku u ogol yahay waa ilaahay dadkan isaga abuuro yaqaano qofkii adduunyada jeclaaya ku adkaa maalintu arkay inuu sii dhimanayo waxba laga yaabaa inuu ka wada bixiyaba dhaxlayaashii xoolihii awla gabigooda baa bixiyo cayreeyo dabarkaas loo dhigay dabarka labaad loo dhigay waxa weey hadduu intaa ka badiyo oo boqolkiiba kala bariyo xoolaha dhan iyo uu yiraahdo waxay u baahan tahay biijaaz alwarafa dhaxlayaasha kale inay saamaxaan ama socodsiiyaan inay fasaxaan saamaxaan dhaxlayaasha kale ay yiraahdaan inta waalidku dardaarmay thuluthkiiba ha ka badnaato laakiin anaga oo ogolaan waxa kale oo dabarka saddexaad ku xidhan uu yahay la wasiyata liwarith sidoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu فلا وصية لوارث ورددي هو قف والبا إلهي دحلكي سيبو سيئ قفكي دحله دردارا ماله دردارا نقطه وحلونيا قفك الله دردار من دحلك ميوح كله ها كاسوا كدنت دردارا كاسوا كدنت وحلا يرى لبدا إذا ما جرى الله بدايف ما جرى وحويان أما دردارا بوله أما دحل بوله تاسنا ساسين نقطه وحتى كدوان يدو فقه أهان هبدي بقى كدوان يدو هدية دي حسوي كدوين ayadu waxay soo degtay intii aan aayaadka dhaxalku soo degin ay soo degtay sida kaaga muuqanaysa sida daraadeed ba culimada qaar kood ay leeyihiin waa mansuukh
waxay se u badan yihiin inaanay mansuukho ahayn muxkama ay tahay macnaheeduna uu yahay qofka aan dhaxal lahayn unbaa dardaarankan leh xataa labada waalidba ha ahaado dardaarankuna sidiisaba wuu wanaagsan yahay in la qoro sida axaadiidta saxiixa nebiga ka soo arooreysa calayhi salaatu wasalaam ay nagu dhiiri gelinayso oo qofku inta uu had iyo jeer nool yahay oo caafimaad qabo ilaa waynu ku qanacsannahay inaynu dhimanayne qofku inuu wasiyadiisa qoro weeye dardaarankiisa qoro oo uu ku talagalo dhimashada inuu ku talagalo diyaar ahaado reerkiisa la dardaarmo caruurtiisa la dardaarmo shuraakadiisa asxaabtiisa wax waliba inay cad yihiin hadha wax la isku dilay wax la isku khilaafay wax la isku murmay wax la dafiray aanay jirin ilaa wasiyatu maktubatun cinda dardaarankiisu ha qornaada buu nebigu leeyahay qofkii u baahan inuu wax dardaarmo waa mid aad odhan karto dadkeennu dhaqan uma laha oo waxay iska yaro fogeeyaan ama u yaro dhagooleeyaan geerida markaa wuxuu haddaad imika qof mid baa xanuunsanaya waxaa la yidhi dardaaran hebelow iikaadii bui horta iikaadii weli may gaadhine sakaraadkii baaba haya naftii baa haysa marka wuxuu u haystaa saacad ilbiriqsiyada u dambeeya uun in la dardaarmo fikri noocaasa baa inagu jiraa laakiin wuxuu waxay ku maal baa lagugu leeyahay adigaa cid wax ku leh xuquuqdii adiga xaaskaa wax idiin dhexeeyaan waxaan cid kale ogeyn baa jira in waxoo dhan wada qoran yihiin diin iyo dunya labadaba de waa laga dardaarmaya kutiba waa ereyada loo isticmaalo sida nasku maaragtay caddaynayo waajibaadka ee loo isticmaala iyo furid oo kale idaa xadara axadakum اlmowt midkiin markay geeridu kusoo xaadirto manaa calaamaat amaaraat اlmowt la arkay inuu sii dhimanayo ilaa hadduu dhinto warba ma jire in taraka khayra hadduu khayr ka tegey alwasiyatu baa la waajibiyey baalkii maalkaasoo maaragtid magaca loo bixiyey khayr baa loo bixiyey wainahu lixubi اlkhayri lashadiid maalku waa khayru fii yadi اlakhyaar wa sharu fii yadi اlashraar markuu dadka khayr kale gacantooda ku jiro waa khayr waa kaa diin iyo dunyaba dadka ka farxinaya nicma almaalu saalix lirajuli saalix wanaagsanaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam maal xalaalahoo qof wanaagsan gacantiisa ku jira wax la tamaniye weeye oo idhaayaa intiisaa in la ku siiya adiguna sidiisa aad ku bixisi marka waa khayr laakiin dadka dhulbi-iska ee mufsidiinta markuu gacantooda ku jirana waa shar ilaa waa seef dadka lagu laynayo o lagu baabiinayo in taraka khayra alwasiya mowqifka islaamka waxaa ka duwan mowqifka kaniisadda iyo ragga kaniisadda oo waxay ku leeyihiin waa balaayo waa xarig shaydaan xoolaha iyo had iyo jeer naagaha iyo waxaas waa xibaalu shayaaiin xarkaha shaydaanka wey naagna ha u dhowaanin maalna ha u dhowaanin waa inaad noqotaa mid suka ah oo keligii socda faqiira meelaha ku dib jira ka caydha xoolo dee taasina mayay soconaysa waa sababta keena in la tuuro kaniisadda iyo raggeediiba ee reer yurub iyo gaaladu ay u tuureen in taraka khayra alwasiya yaa loo dardaarmaya haddaba waa intii aan dhaxal ku iman lilwaalidayni waalaqrabiin labada waalid iyo dadka qaraabada ah labada waalid waxay ka mid yihiin lixda qof een dhaxalka dhicinba الزawjaan wاlabawaan wاlwaladaan aabbihi hooyo dhaxalka kama baxaan xaaladdu markay caadi tahe diliya waxba aanay jirin ama gaalnimo jirin labada qofe xaaskiina dee kolley midun baa noole kama baxaan labada caruura wiil iyo gabadhina kama baxaan qofka caruurtiisuna kama baxaan inta kale waa laga yaabaa in la xijaabo haddaba labadii waalid sidee loogu dardaarmay maadaama nebiguna uu sheegay qofkii dhaxali aan inaanu dardaaran lahayn xaaladaha jiri kale bay leeyihin culimadu waalidku aanu dhaxalba lahayn tusaale ahaan wuxuu noqday mid diin kala haystaba oo gaal ah dee waa loo dardaarmi karaa gaalka laftiisa waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumaashidii asmaa u timidoo waxay leedahay hooyaday way timid iyadoo doonaysa inaan xidhiidhiyo dee islaamna ma aha maxaan ka yeelaa wax ma siiyaa silii umakii buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam hooyadaa xidhiidhi gaaladba ha ahaatee xidhiidhi marka waxaa lagu xidhiidhinaya waa wax ay siinayso wey idan markaa gaalkii laftiisibaa waalidka habaa loo dardaarmi karaa dhaxal ma laha xaaladdaa diinta ay ilmihiisii isku khilaafsan yihiin laakiin dhaxal buu wuxuu yeelanayaa dee dardaaran dadkan qaraabada ahina dee waxa weeye waxay isugu jiraan dad dhaxallahi iyo kuwaan dhaxal lahayn marka waxaa lagu fasirayaa
kuwa aan dhaxal kale inay dardaaranka leeyihiin bilmacruuf waa wixii sharcigu ogoliyay ee quyuudda aynu soo sheegnay xaqan cala almuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanayo xilkaasi saaraayo markii aanu dhaxalku la soo rogin dardaarankana waajib ahaaba dadka haddaba sii dhimanaya dad baa ag jooga dardaarankooda dhagaysanaya markhaati ka noqonaya soo gudbinaya dadkii soo gaadhsiinaya door bay leeyihin markaa doorkoodu waxa weeye inuu noqdo run iyo islaax inay runna sheegaan waxna wanaajiyaan midku waa labadaa qeyd baa taagan arrinkiina run ha ka sheegaan wanaagna ha ka sheegaan hadda mararka qaarkood baa wanaaggii wuxuu noqon karaa run waxaan ahayn sida aayadda dambe sheegaysa faman badalahu bacda maa samicahu fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluuna dadka dardaarankii bedela intii ay maqleen kadib dembigiisu wuxuu saaran yahay dadkii bedelay qofkii wuu soo dhageystay qofkii dhimanayay buu soo dhageystay oo hebel waxaasaan siiye hebel waxaa hala siiye saasuu ayuu maaragtay u sheegay marka qofkii dhagaysanayay baa kala wareejiyey oo run kamuu sheegina been buu sheegay dee dembigiisu kii dhintay ma saarna ee wuxuu saaran yahay kan bedelay qofkii daynta lahaa ayuu yidhi dayn ma leh xaaskii oo aan meher lahayn buuhi meher bay leedahay xaaskii oonu furin buuhi wuu furay ila waxaasoo dhan waxbaa iswada bedelaya xuquuq baa lagu duudsiyaya ama qof aan lahayn baa wax qaadanaya waxaasuu kala wareejiyey dembigiisu kii dhintay ma saarne eh wuxuu saaran yahay kan bedelay in allaha samiicun caliim waa tahdiid waa hanjabaad aad u adag ilaahayna wuu ku maqlaya oo wuu maqlaya oo wuu arkaya arrintanna waa mid kale haddaba faman khaafa min muusin janafan aw iman qofka ka cabsada ku dardaarmaya leexasho iyo dembi buu uga baqday janafan aw iman janafkuna waa leexasho imiguna waa dembi kii sii dhimanayay ayuu dhegaystay markaasaa wuxuu arkay waxaanu ku dardaarmayaaba inuu yahay wax dembiya ama waxaanu ku dardaarmayaaba inuu yahay xaqiiqadii uu isweydaarinayo oo inuu leexday buu arkaya oo sidii saxda ahayd uu ka leexday ee xaqa ahayd kolkaasuu fa aslaxa baynahum dadkii dhexdoodiibuu wanaajiyey kaa isaga dembi ma saarno qof wax lahaana wax ma laha buuri kuwaan waxba lahaynna waxbuu leeyahy buuri wuu isweydaariyey isaguna kii lahaa ee uu ogaade waa nin xaqiiqada haya kii wax lahaabuu wixiisii u sugay kii kale ee aan waxaanu lahayn la siiyeyna wuu ka qaaday isagana arrinku sidii u ahaa buu ku soo celiyey xataa culimmadu waxay leeyihin hadduu isagu wax kharibay oo sidii saxda ahaydoo beena uu sheego oo dadka dhexdooda sidaa uu ku wanaajiyo isaga ilaahay wuxuu uhi falaa idba calayhi dembi ma saaran ilaan mar bay runtuba beenta ka fiicanta beentuba mar bay runta ka fiicanta oo marka qof walba xaqiisa la siinayo ina allaha kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisto oo qofkaa wax saxay isaga waxba looma haysto fa aslaxa baynahum waxay sheegaysaa dadkiioo murugsan oo murmayoo ishaysta ayuu sidii saxda ahayd sheegay qof walba xaqiisiibuu u sheegay kii dhintay wixii uu qalloociyeyna wuu saxay isaga dembi ma saara marka laba arrimood baa loo baahan yahay oo run iyo islaax haddii runtii ifsaad keenayso runtii lama sheegayo iyo ninkaas wuxuu sheego lama soo gudbinayo marka halkaasi waxa aynu ku arkaynaa arrinku inuu yahay alumuuru bimaqaasidi arrimaha qasadkaa lagu xisaabtamayaa wixii xuquuqda in la ilaaliyaabaa lagu xisaabtamayaa xaaladaha xasaasiga ee qofku markaasoo kale in la toosiyaa buu istaahilaa oo dulmiga si uu uga badbaado oo dadka xuquuqdooda aan loo dhicin idan markaa dad badan oo dee aan diinta garanayn ayaa xaaladdan markay ku sugan yihiin qalooc badani ka yimaada dadka qaarkood baa laga yaabaa xaaladdaasoo kale markuu sii dhimanayo inuu idhaahdo dhaawacayga ah waxa i dilay reer hebel ama hebelkiisii baan u dhimanayaa cadho u qabay daraaddeed dee mana garanayo ilaahay unbaa ogsoon waxaa kaloo suuragala in xaaskiisii ay isu cadhaysnaayeen uu idhaahdo taana waan furay beri horaan furo may soo dhowaan markaa dhaxalku kala cararaya waxaa kaloo laga yaabaa inuu idhaahdo meherkeedii baan siiye mabuu siininba waxaa kaloo laga yaabaa qof aan wax la lahayn uu isleeya way qadin doonaan inuu idhaahdo hebelna shuraakaanu ahayn waa walaalkii
أما قف أهلهين وسلي كانوا ويقدين دونا بوليس كقدرية وحاسو بين أقف كحكتها هي أكتوجة صحة تبي مسار رب الهين كان هرنا وحنا لقول إلا إن الله سميع عليم وحخربي إيه وحكلا وراتي كدن برا وحي لها وضبط إن الله غفور رحيم هدا يدينكم مودا إنسان قف وحصحين ودم بسارين هاي وحبوا ما هيستيد إنه وحوقف سنوي الله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان